marka ugu horeysa dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan jeclahay marka dadka inay fahmaan xogtii laqashaa qabuuro gashay inta qulule dadka u qeex waxaa annaga na dhibay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed dad aan la aqoon oo meel walba taagan sidaa darteed waxaan jeclaysanay inaan anagoo dhalinyaro ah oo tiim ah aan aasaasno madal dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan ardayda iyo macallimiinta dugsiyada sare iyo aqoon-yahanada da'da yar intay isku yimaadaan iyagu ay ka hadlayaan waxyaabaha mustaqbalkooda wanaagsan. barnaamijkan halka aad ku aragtaan nin oo ah barnaamijka isbar dadkaaga qofku markuu maqlo su'aal ayuu isweydiinayaa waxa uu isleeyahay maxaad isbaraysaa marka ugu horeysa yaa tahay qofka marka hore yaa tahay kadibna yuu yahay qofka dadka isbaraya barnaamijkan oo fikirkiisu uu keenay walaalkeen haddeertan barnaamijkan oo xiriirinayay Mas'uud Warsame Isxaaq ilaahay ajri iyo xasanaad ha ka siiyo aad iyo aad buu iskugu hawlay hawshan inuu ka miro dhaliyo barnaamijkan ujeedka loo asaasay waxa uu ahaa maanta waan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa Soomaaliya markii la yiraahdaan waa boqolkiiba 75 inta u badan waxa percentage waxa waa dhalinyaro weeye saa darteed ayaan waxaan go'aansanay bal inaan dhalinyarada leh hal abuurka fikirka wanaagsan oo wadankooda ku soo kordhinaya inay helaanin madal sidoo kalena ay waqtigooda uga faa'iideystaan barnaamijkan muhiimadda uu leeyahay waxa weeye isdhexgalka bulshada waxaan ugu talagalay kaliya inaan hambaliyeeyo anigu waxaan ahay shakhsi kamid ah dadka magaalada Muqdisho jooga kana shaqeysta halku dhiga meesha ku yeelana waxa way isbar dadkaaga midda kale tan waa dhaxal reeb waaye oo hadalka meesha ku qoran waxa kugu jira oo xikam ama se fikir ganacsi ha ahaado ama se ha ahaado xikmado hidda aad u leedahay sida gabayo iyo suugaanta noocyada kala duwan aad leedahay soo gudbi waayo ololo ka fiican oo la qaadi lahay in kanoo kale la qaado ma jiraan dad kastaba waxaa hormariya dadkiisa khaasadan kuwooda wax bartay wax kale idma dhahayo waxaan leeyahay dhalintaan way keeneen aragtidii dabcan qof kastoo naga mida markuu akhriyana waxaa laga yaabaa inay midaan la mida ama ka qurux badan ka dhex guuxayso waxaan bogaadinaynaa in la hormariyo barnaamijkan waxaa la yiraahdaa oo saaxiibkii ugu horreeyay ku maamaahay dadkiisa dhista dalkani anaga burburinay ciidan anaga ma dhisayso dabcan wadadii loo dhisi lahay iyo meeshu ku hagaagi lahayna inta meeshan fadhisa iyo inta la midka ah ku nool arladan dusheeda baa laga rabaa insha Allah aniga waxaan jeclahay walaalahayga oo maanta isku xilqaamay barnaamijkan in aan garabkooda soo joogsado oon la shaqeeyo hiil hoob aan siiyo oo ku faraxsanahay inaan nasiib u yeesho in aan ka mid noqdo dad kelmadaha halkan ka soo jeedina anigoo markii hore calaf u yeeshay in barnaamijkan quruxda badan aan ka soo qayb galo mar koowaad alla iyo mahad u sugnaatay mar labaadna saaxiibkeen Mas'uud iyo asxaabtiisa kuwaas ay ku dhalatay aragtida ah in barnaamijkan muhiimka ah ay daha ka soo rogaan oo ah ciwaanka meesha ku qoran dabcan oo ah wax ugu horeeyay soo jiidanaya qofka hoolka soo gala xogtii la qarshaa qabuuro gashay intii qormi lahayd dadkaaga u qeex dabcan way maasiin waa sax waxa jira dad fara badan oo qof walba maankiisa waxa ku jira hadii bulshada uu la wadaagi lahaa ka dhalinyaro ahaan dadka iyo dalka inta bay faa'iido ahaan lahayd kulli aniga asaasa hadaan ay fikirka hadaan keenay maanta hadal ima bana laakiin 12 markii uu gaaro 12 bilood oo sanad gaaro dabaaldegaasi insha Allah khudbada markaas ila diyaariyo markaas aan khudbad jeedin doonaa waxaan rabaa hal mar inaan ku soo dhaweeyno oo aan sacab isla istaagno Maxamed Cali Juxa aqoon-yahan Soomaaliyeed wax badan ka qora arrimaha nolosha horumarinta barnaamijkeena maanta isaga ayaa marti isaga ayaa hadlaaya isaga ayaana mudnaanta kuwaad maanta aan siinay wuxuu ka yimaaday qurbaha Sweden in badan qurbaha ku noolaa dalkan wax badan buu ku bartay doodeena maanta ay ku saabsanaan doonto shaqo la'aanta dhalinyarada iyo tahriibta isaga ayaa inta fara badan wax badan su'aalo aan ka weydiin doonaa hal barto Maxamed haddaan idin koobo aniga isaga waxa uu ka mid ah saaxiibada sidoo dhow aan social media gaar ahaan Facebook aan isku baranay waqtiyadii dambe wax badan buu iga caawiyay aragti ah buuggii aan qoray iyo wax badan oo horumarina runtii aadan ugu faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo barnaamijkan aadka u quruxda badan oo si hagar la'aan ah isugu soo hawleen
maxay to maarta tiimka ugu horeeyo ninka ugu horeeya Mascuud anigana aan nasiib u yeeshay maanta inaan hortiina aan soo istaago taasna waa Ilaahay mahadiisa